شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. saamaynta ka dhalan karta marka aynu yeesno liidno amaba hoos u dhigno qof inala mid ah balse inagaba fiicnaan kara dadaal iyo daacad alle. laga yaabee in ilaahay agtiisa looga jacayl badan yahay kibirkeena iyo isla weynideena. waxa qabka iyo isla weynida ina geliyay waa mansab iyo qabiil, kursi iyo xil ama qurux iyo muuqaal aan midna ilaahay agtiisa qiimo buuran ku lahayn. balse miskiinkan aynu yaraysanayna ee muuqaal ahaan u dayacan, maal ahaanna u faramaran, qabiil ahaanna aynu magacyada ula baxnay ee ku takoornay, laga yaabaa inuu ilaahay agtiisa awliye ka yahay, islamarkaana dhibka aynu u geysanaynaa uu ilaahay xadhogelinayo. balse alla weyne wuu karaa inuu cidii uu doono adduunka ugu hiiliyo, sidoo kalena wuu karaa inuu aakhiro ugu dhigo isagoo samirkiisa tijaabinaya. sidoo kale ilaahay kan wax dulminaya wuu awoodaa inuu adduunka ku ciqaabo, balse rabbi waa uu ka adin badan yahay si aynu u soo noqonno oo mar uuna toobad keenno. tani waa gabadh waxay saaran tahay diyaarad, waxaa dhinaceeda fadhiya nin miskiin ah. marka iyada loo eego aad uga hooseeya muuqaalkiisa, midabkiisa, labiskiisa. gabadh kibar badan bay ahayd. ninkii diyaaradda shaqaalaha ka ahaa bay u yeedhay, waxaana ku tiri ninkanu dhinac fadhiya labiskiisa kamaan helin, midabkiisana kamaan helin, iga bedel. iyadoo weliba aad codka kor ugu qaadaysa oo aan dareenkiisa ixtiraamaynin. ninkii shaqaalaha diyaaradda ka ahaa wuxuu ku yidhi waa sax marwo, anaa kaa bedelayaa. wuxuu raadiyey kursi kale, diyaaraddii buu kusoo wareegay, wuxuu helay kursi ka bannaan qaybta VIPda. ninkiibuu kusoo noqday, wuxuu ku yidhi mudane kursi waa ka bannaan qaybta VIPda, markaa kaali fadhiiso si aad safarkaaga ugu raaxaysato, gabadhuna ay safarkeeda ugu raaxaysato. gabadhii kibirka badneed halkii kumay joogine waxay tiri maxaad aniga ii geyn weyday kursiga VIPda, iyadoo weli kibirkeedii iyo qabkeedii u haysataa inay ka mudan tahay ninkan VIPda la fadhiisiiyey iyadoo ay uga xaq leedahay. ninkii shaqaalaha wuxuu ku yidhi iga raali noqo marwo, waayo imaad odhan kursiga iga bedel ee waxaad igu tiri ninka iga bedel.